kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada tabinta habeen qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka madaxweyne Farmaajo oo aanbabaxay dalka Qatar iyo xoga laga helay ujeedka safarkiisa hadaba muxuu la xiriiraa halkan ayaa idin kugu soo gudbin doonaa maamulka Puntland oo maanta soo gabangabeeyay deegaan doorashadii labaad ee Puntland kadib 16 kursi oo maanta doorashadooda ay ka dhacday Boosaaso wararkii ugu dambeeyay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug Koonfurteeda oo laga dareemayo diyaar garow xoogan oo lagu wada doorasho inay halkaasi bari ay ka bilaabato iyo dawladda Ruushka oo ku dhawaaqday xabad joojin degdeg ah kadib dagaalkii ka socday dalka Ukraine oo Ruushka iyo u dhaxeeyay dawladda Ukraine qodobada iyo kuwa kale ayaan ku tabi doonaa wararka Somali News ee u diyaar garooba markale kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa habeenimo sabti baxaysa axad ayaa soo galaysa taariikhda waa 5 bisha 3 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ina faahfaahinteedu guda galno fadlan muuqaalkan hadduu ku soo gaaro sii share garay saaxiibadada kalena sii gaarsii bogganana ku soo bir haddii ay tahay markii kugu horreysay oo soo booqato haddii aynu ku bilowno madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee muddo xileedkiisa sharciga ah uu ka dhamaaday ayaa maanta safar dalka dibadiisa ugu aanbabaxay dalka Qatar halka oo booqasho rasmi uga bilaabatay qoraal kooban oo ka soo baxay filan Soomaaliya ayaa lagu sheegay booqashada Farmaajo wafdigiisa ay qaadan doonto muddo 2 cisho isla markaana uu la kulmi doono amiirka dalka Qatar Farmaajo Tamim bin Hamad Al Thani ayaa ka wada hadli doona arrimo ay kamid yihiin xoojinta xiriirka soo jireenka horumarinta iskaashiga ku qatomo is-ixtiraamka iyo wax wada qabsiga horumarinta danaha labada dal iyo shacabka walaalaha safarka madaxweyne Farmaajo hore loo sii qorsheynayay waxa hore u shaacisay warbaahinta dalka Qatar iyadoo sheegtay in Dooxa casuumaad u fidisay madaxweyne Farmaajo waqtigu hogaaminayo Qatar ayaa si weyn u taageertay xukuumadda madaxweyne Farmaajo waxaana la sheegay inay si buuxda u doonayso in Farmaajo uu dib loogu doorto madaxweynaha Soomaaliya marar badan ayuu Farmaajo sidaan oo kale safar ku tagay dalka Qatar isagoo la kulmay amiirka iyo madaxda ugu sareysa dalkaasi mucaaradka Soomaaliya iyagoo waxay dhaliilo xoogan u jeedinayaan Qatar oo arkaan inay tahay farada Farmaajo ee dalkaasi ku badan kuwa dana gooniya laga leeyahay si kastaba ha ahaatee booqashada Farmaajo ee Dooxa ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi isla markaana ay dalka ka jirto marxaladda doorasho iyadoo dawladda Qatar ay mar kale xooga saarayso sidii dib loogu dooran lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama xildhibaanada golaha shacabka doorashadooda dhawaan la soo gabagabay doono oo 15 bishan aynu ku guda jirnaa ay ku eg tahay inkastoo dad badan ay mugdi gelinayaan booqashada safarka madaxweyne Farmaajo maanta ugu aanbabaxay dalka Qatar haddana waxaa la sheegayaa inuu kulamo docoodyo gooni ah la qaadan doono madaxda ugu sarreeya dalka amiirka dalkaasi madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada ayaa haatan loo jeedinaya eedo waaweyn oo ah inay dib u dhacyo xoogan ay hareeyeen doorashada xildhibaanada golaha shacabka isla markaana muddo ka badan 2 sano ay soo gabagaboobi laadahay xogaha hoose ee helna ayaa tilmaamay inuu safarka Farmaajo ee Qatar uu yahay kii ugu dambeeyay oo la xoogan uu kaga raadinayo dalkaasi iyo sidoo madaxtinimada mar kale ugu guuleysan lahaa maadaama haatan caqabado waaweyn uu wajahayo iyo loolan adag Farmaajo markaana magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari waxa maanta lagu doortay dhamaanba deegaan doorashada labaad ee maamulka Puntland waxaana halkaasi ka qabsoontay doorashada 16 kursi oo hore guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ay u shaaciyeen kuraasta kala Boosaaso waxa maanta lagu doortay hoob 157 hoob 227 hoob 273 hoob 234 hoob 76 hoob 169 hoob 83 hoob 220 hoob 149 hoob 158 hoob 27 hoob 36 hoob 222 hoob 228 hoob 142 iyo hoob 190 kursiga ugu horeeyay ee doorashadiisa maanta ay ka bilaabatay magaalada Boosaaso oo ahaa hoob 157 waxa ku guuleystay Maxamuud Axmed Aadan kursiga labaad ee xiga ah hoob 227 waxa ku guuleystay Cabdicasiis Maxamed Maxamuud Qambe oo ahaa shakhsiga kaliya ee dib ugu soo laabtay xildhibaanadii hore ee kuraastaasi ku fadhiyay kursiga saddexaad ee xiga waxa ku guuleystay Generaal Bashiir Cabdi Maxamed Maxamuud America taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliya haatan kamid ah la taliyaasha madaxweynaha Puntland Siciid Dani wuxuuna ku guuleystay kursiga hoob 273 kursiga afraad waxa ku guuleysatay Marwa Cabdi Bashiir Xaaji Cali waxayna noqotay haweeneyda kaliya ee maanta lagu doortay xildhibaanadii ku soo baxay magaalada Boosaaso haweenka ahayd kursiga hoob 234 ayayna ku guuleysatay kursiga shanaad waxa ku guuleystay Muuse Axmed Ismaaciil kaas oo u tartamaya kursiga hoob 76 169 waxa ku guuleystay Cali Mahdi Maxamed oo helay codad gaaraya 97 cod
kursigaasi hore waxa ugu fadhiyay wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan balse sanadkani aan u tartamin. Kursiga 8aad waxaa ku guuleystay Maxamed Bashiir Cali oo helay codad gaaraya 95 cod waxaana uu ku tartamayay kursiga Hoob 83. Kursiga 9aad waxaa ku guuleystay Cali Xaaji Daahir Salabaan isagoona ku tartamay kursiga Hoob 220 waxaana uu codeeyay 101 ergey cod gacantaaga. Kursiga xigay waxaa ku guuleystay Faysal Axmed Maxamuud isagoona ku tartamay kursiga 149 waxaana uu codeysay 101 ergey oo cod gacantaaga. Kursiga kale ah Hoob 158 waxaa ku guuleystay Saadaan Maxamed Cabdi isagoona cod gacantaaga ergada ay ugu codeeyeen. Kursiga xigay waxaa ku guuleystay Siciid Cali Muuse oo ku guuleystay kursiga Hoob 27 wuxuuna helay 98 cod. Kursiga kale Maxamed Aadan Diini ayaa isna noqday xildhibaankii 12aad ee maanta lagu doortay magaalada Boosaaso wuxuuna ku guuleystay kursiga Hoob 36. Kursiga 13aad oo ahaa Hoob 222 waxaa ku guuleystay Caynaanshe Yuusuf Xuseen oo helay codad gacantaaga horena u ahaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka maamulka Puntland balse xilkaas iska casilay maalmo ka hor. Kursiga ku xigay waxaa ku guuleystay Cabdifataax Faarax Mire waxaana ku tartamay kursiga Hoob 228 waxaana helay codad gaaraya 98 cod. Kursiga ku xigay waxay ahaa 142 waxaana cod gacantaaga ku guuleystay Ismaaciil Mire Jaamac oo helay 84 cod. Kursiga 16aad ee ugu dambeysay deegaan doorashada labaad ee maamulka Puntland waxaa ku guuleystay Maxamed Cabdulqaadir Maxamed wuxuuna ahaa Hoob 190 kursigaas ugu dambeeyay 16 kursi ee lagu doortay maanta magaalada Boosaaso. Guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ayaana shaaciyeen dhamaanba ay soo gabagabeeyeen 16 kursi ee deegaan doorashada magaalada Boosaaso ee labaad ee Puntland. Inkastoo maalmihii dambe ay jireen xiisado ku gadaamnaa qabsoomida doorashada haddana guddiga ayaa isku maalin qabtay 16 kursi oo hore ay u shaaciyeen musharaxiinta u tartamaysa oo hore loo sii saadaalinayay maadaama shakhsiyaad gooniya loo xiray. Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland ayaa Boosaaso ku sugan waxayna Puntland noqotay maamulkii labaad oo soo gabagabeeyay deegaan doorashada magaalada labaad ee doorashooyinka maamulada. Markaana haddii aan aadna koonfurta magaalada Gaalkacyo dhinaca Galmudug waxaa ka socda diyaar garow xoogan ee bilaabitaanka deegaan doorashada labaad ee maamulka Galmudug. Guddiga doorashooyinka maamulka Galmudug ayaa shaaciyay kuraastii ugu horeysay ee lagu bilaabayo 11 kursi ee taalla magaalada Gaalkacyo koonfurtooda. Wafuud kala duwan ayaa magaaladaas ku sugan waxaana qayb ka madaxweynaha maamulka Galmudug Qoorqoor oo maalmo ka hor soo gaaray halka uu kulamo ka wado maadaama xiisad haatan ay ka taagan tahay qaabka loo dooranayo kuraasta magaalada Gaalkacyo ee deegaan doorashadooda tahay hab qaybsigooda. Kuraasta haatan dood xoogan ay ka taagan tahay waxaa qayb ka kursiga Hoob 20 oo guddiga doorashooyinka Galmudug qoonda dumar ay ka dhigeen balse uu ku tartamay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Naqarsho taasoo xiisad xoogan sababtay. Kuraasta kale oo aadka loo isugu hayo loolanka adag ka taagan yahay oo doorashadooda dib loo dhigay waxaa qayb ka kursiga Hoob 69 oo ay ku tartamayaan xildhibaankii hore ugu fadhiyay Cabdiraxmaan Odawa iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cali Cadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya oo isla maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Horeyna waxaa Gaalkacyo ugu sugnaa Cabdiraxmaan Odawa oo ahaa xildhibaankii hore kursigaas ugu fadhiyay. Amniga magaalada Gaalkacyo ayaa aad loo adkeeyay goobaha doorashadaas ee biri ka bilaaban doonto waxaana halkaasi ka socda diyaar garow xoogan oo ku aadan bilaabista deegaan doorashada labaad ee Galmudug. Ugu dambeyntiina dowladda Ruushka ayaa ku dhawaaqday xabad joojin qaybo ka mid ah dalka Ukraine oo dagaalo xoogan ay ka holcayeen. Wasaaradda gaashaandhigga dalka Ruushka ayaa 2 magaalo oo ku taala Ukraine ku dhawaaqday xabad joojin ku meel gaar ah iyo inay furayso marino gargaar lagu gaarsiiyo shacabka laga bilaabo 4 subaxnimo markii Moscow ka hay saacada. Inkastoo dagaalada Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeyay si xoogaysanayeen haddana magaalooyinkaasi xabad joojinta ay ku dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa maalmihii dambe waxa ku gacan sareeyay ciidamada Ruushka dagaaladii ka dhacay waxayna dowladaha kale ay ku baaqayaan in la joojiyo dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine halka madaxweynaha dalka Ruushka Putin uu ka dhaga fureystay hadallada ka soo yeerayo dowladaha kale oo ku tilmaamay kuwa gardareysa. Lama oga inay xigi doonaan sidoo kale xabad joojino kale oo goobaha ay dagaalada ka holcayaan ee u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine inay ku dhawaaqi doonto wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Ruushka. Inta ayaan kusoo gabagabeynaa khiyaari tabinta wararka aad kala socoteen channelka wararka Somali News mid lamid inta kulmi doona nabadgelyo. Fadlan muuqaalkan haddii ku soo gaara si share garay saaxiibadada kala sii gaarsi waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan bogana ku soo bir haddii aad ku cusub tahay. Mahadsanidin.